shanta xanuun ee Soomaalida caruurteeda aad ugu badan gaar ahaan ay u dhintaan waxaa ka mid ah xanuunka malaariyada, xanuunka malnutritionka ama nafaqa darrida, measleska ama jadeecada, pneumonia xanuun la yiraahdo oo af mareenka ah, iyo shuban biyoodka ama shubanka inuu ilmaha ku bato. Shanta xanuun waa xanuuno laga hortagi karo oo la yareyn karo in ilmaha ay ku dhacaan haddii lagu dadaalo. Inta badanna bulshadeena caruurteeda ay u dhintaan oo adduunka oo idilna waxaa la yiraahdaa caruur meesha ay ku noolaadaan meesha ugu liidata waa Soomaaliya, waxaana keenaya adeegii caafimaad oo aad u hooseeya. Cudurrada ay u dhimanayaanna waa cudurro ay ugu dambeysay adduunka inay ilmaha khatar u galaan sagaashameeyadii iyo sideetameeyadii iyo wadamada inta badan ugu dambeysay. Waxaa shanta xanuun hadda aan ka soo sheegnay oo xanuunka ugu horeeya uu yahay malaariyada ama kaneecada, si sahlan ayaa loogu hortagi karaa oo haddii ilmaha si sahlan malaariyada ama kaneecada si sahlan ayaa loogu hortagi karaa oo haddii ilmaha loo sameeyo deegaan ka fog, maadaama kaneeca ay soo qaadayso xanuunkan parasite-ka ay ka soo qaadayso qofkii xanuunsanaa qofkii fiyowaana u keenayso in laga fogeeyo oo mara kaneeca ama la adeegsado ama deegaankii laftirkiisa laga shaqeeyo sidii loo yareyn lahaa inay kaneecada ay ku noolaato. Qodobka labaad, xanuunka labaad oo ah isagana malnutritionka ama nafaqa darrida, ilmaheena waxaa haysata dhibaato xagga nafaqada ah oo waalidkan iyadoo dhici karto inay cunadii siinayaan haddana cunno isku dheelitiran lama siiyo ilmaha. Taasna waxay keenaysaa in ilmihii ay ka maqnaato maadooyin muhiim ah oo nafaqadii u ah. Haddii nafaqa darri dhacdana difaaca jirka ayaa hoos u dhacaya, taasna xanuun ayay ilmaha ku keenaysaa, xanuunadii inuu nuglaado kadibna ay dhici karto inuu u dhintaba. Ilmo badan ayaa nooga dhinta inay nafaqa darri ay ku dhacday. Haddaba waxaa ku dadaashaa inaad faham ka yeelato xagga nafaqeynta ilmaha. Qodobka saddexaad oo xanuunka saddexaad oo measles ama jadeeco waa xanuun si degdeg ah ku fida oo si sahlanna looga hortagi karo iyadoo ilmihii aad talaasho ay kaaga filan tahay inuu ilmahaasi xanuunka uu ka hortago. Haddii oo ay ku dhacaan waxaa fiican inaad degdeg wax uga qabato oo aad dhakhtar ku geyso oo lala tacaalo inuusan dhibaato kale ilmihii u geysan ama uu nugleysan. Difaaca jirkana inaad mar walba ka shaqeyso ilmaha inuu kor u soo kaco. Qodobka afraad ama xanuunka saddexaad, pneumonia ama oof-wareenka, waa xanuun aad ugu badan bulshadeena, wuxuuna bacteria ayaa inta badan iyo virus ayaa keena. Sanbabka ayaa waxaa ku dhacaya caabuq ama infection, taasna waxay keenaysaa in ilmihii uu u nuglaado xanuunkaas inuu dhibaato u keeno. Marka xanuunkan dhibaatooyin kale xataa ayuu keeni karaa. waa laga hortagi karaa adigoo ku dadaalaya nadaafadii iyo habdifaaci jirka in ilmaha ka qaado. Haddii aad ku aragto qufac badan iyo qandho badan oo ilmaha qabanaysa inuu neefta ku dhibtoonayso, inaad dhakhtar si dhaqso ah ula xiriiriso waa qodob aad muhiim u ah oo yareynaya dhibaatadii inuu ilmahan xanuunka u dhinto. Xanuunka shanaad oo ugu dambeeya oo ah inay shuban uu ilmaha yeesho, shubankaas oo ma garanaysaa ku keeni kara fuuqbax. Waxaa habboon marka inaad haddii aad ku aragto ilmahaaga inuu fuuq baxayo ama shuban u yimaadaba, inaad wixii ka baxaba jirkiisa aad geliso. Haddii ay kuu suurageli weyso inuu wax qaadan waayana inaad hore dhakhtarka kala gaarto, taasoo uu si degdeg ah u helo adeeg caafimaad oo u baahnaa ilmahaas in la caawiyo lagana hortago inuu ilmahaasi fuuqbaxaasi u dhinto. Haddaba aad bay muhiim u tahay waalidku inuu wacyi garaad u leeyahay, shaqaalaha caafimaadkana laftirkooda inay fahansan yihiin in xanuunada ilmaha ku dhaca haddii aan la daweyn ama aan laga hortagin inay dhibaateyn karaan mustaqbalkiisa iyo nolosha. Maadaama mustaqbalkeena uu yahay caruurteenana ay u baahannahay inaan waqti iyo juhdi iyo kharashba gelino, maadaama adduunka oo dhan ay sidaa ay sameeyaan. Inaga laftirkeenana waxaana saaran akhlaaqi ahaan iyo damiiri ahaan iyo istiraatiiji ahaanba inaan caruurteena waqti iyo juhdi gelino oo caafimaadkooda ku dadaalno. Caafimaadkana si guud waxaa la yiraahdaa
waa shaqo si joogto ah loo qabto ma aha kaliya ilmaha markuu xanuunsaday xataa ilmaha fiyow ayaa u baahan in wax laga qabto oo juhdi lagu bixiyo haddii aad doonayso waxaan diyaarinay course ka hadlaya caafimaadka carruurta ama child health waxaa iska diiwaan gelin kartaa qaybta hoose adigoo la xiriiraya sidoo kale lambarada aan soo dhigi doono insha Allah